قرحي سجل لي يدقك حولا دران سيدتي دوغشات كلونجي دران سيدتي دوغشات كلونجي tababaraha caanka ee jaamac maxamuud aadan oo ku magac dheer jaamac karaaciin ayaa waxa uu geel ku dhaqdaa duleedka degmada War-Idaad oo ka tirsan gobolka Saraar xerada geelaasi oo aan ku booqday tababaraha ayaa ugu horeey waxa aan weydiiyay bal in uu faahfaahin dheeraad iga siiyo geela uu halkaasi ku haysto barnaamijka garanaysaan ay tahay bartamihii Somaliland deegaanka ahaan deegaankan ka soo jeednay way halkani marka yaraantaydii ayaan aad geel u jeclaa intii aan dibadda ku maqnaa marka soo noqon xiisad dibadna geelan waa hodelka wuxuu jiraa ilaa iyo 4 kilomitir halkaas aan subaxii habeenkii lagu maalaa anna siyaar ahaan baan u imaaday haday jeer waa goobta aad ku aragtay geela dhalay kunta baa dhalay imika waxa dhalay 10 inta kalena ku xigaan ma sha Allah tiradiisa guud waa imisa tiradiisa guud ee halkan waa 166 maca ku yar marka lagu daro tababara ayaad ahayd haddana waad iga arkaya dhinaciida geela iyo inaad halkaa u leexatay bal labadaas farqiga u dhaxeeya waa kulli waa tacab wax walba tacab weeyaan marka orodadii iyo shaqadii ciyaaraha iyo waxaas sidii baan wali ugu dhex jiraa kamaan tigin laakiin tan markaan maado xilliga fasaxa iyo xilligan faraaqada leeyahay waan soo caana doontaa hawdalkan caana keensanaa marka aad iyo aad wax weeyaan waa wax walba tacab weeyaan laakiin ma sha Allah barwaaqo weeyaan dalku aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay oo inaan imaado aniga reerka iyo asxaabtii iyo ehelkuba yimaadaan oo caana ka maalaan masladahay hadda wad ka leexan dhinacii tababarkooda dhinacana hadda u leexan doontaa inaad geelaaga dhaqatay arrimahaas oo dhinaca kale waqtigeedii malaha waa soo gabagabaysay la 8 sano baa ku dhex jiray garoonka dhex taagnaa marka qofku duu ka daalay markuu fiil kaliya taagnaado markasta marka hadda horto kulay miid u soo goosan maayo galsan noqon maayo laakiin xilliyada barwaaqada ay sidoo kale inaan imaado aniga iyo asxaabtayda iyo family-ga iyo waxa dhan aad baan u jeclay marka hal jeer ma aad baan u imaadaa marka aan chance kasto kama dhamaado inta badan dadka xoolo dhaqatada ayaa dabcan geelan iyo arrimahoogan ilaaliyo oo raaca laakiin aqoon-yahano arrintaasi raaca wali inta badan lama arag ninkana kamid magacaaga marka hore sheeg maxamed magacaaga la yiraahdo waxaan wiil yar oo jacada Hargeysa faculty of mathematics and statistics fasax kastana waxaan ku suganahay geelayga aan ku raaco halkan goobaha uu marba ku sugan yahay waan markasta ka qayb qaato ama haduu dhalayo iyo hadaan dhalin inta baan u soo diyaar garoobo fasax kasta hadii loo bilood tahay hadii bilka tahay inta imkana waxa uu kaleefay waxa weeye sababahan hijra xanuudan awgood intii xanuunku jirayba waxaan ku sugnaa xaaladda geelayga oo aan raacayay inta markasta imka dhalay badankiisu waa inta maalin kasta xero u oodayo maanta u dambeysay shalay u dambeysay labaan u oodayay inta waxaan ninka ku sugan geel xaaladiisa aan ka qayb qaadan ka dhalinyarada kula talinayeen ka qayb qaataan geelooda oo ay markasta fasax helaan inay xoolahooda raacaan aan xoolahooda ku ilaawin dhalinyarada kale walaalayeen hadda waxaan ugu weheliyay halkan aan geelan aan soo booqanay gudoomiyaha telefishinka Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo oo mid kamida geela halkan jooga nooga warami doona hashan inoo taaganahay imka aynu lisaynay waa hal igad maqaaray waa neefkii ayaa ka baxay marka waxay ursanaysaa maqaarkiisii oo looga dhigay neefkii markay ursato ayay godlanaysaa markaas la lisayaa way ku dulmeeraysaa heeso badan baa ku maqasheen igad maqaarayadoo abwaanadu ay u heesayaan hasha marka uu neefku ka baxo waxa weeyaan waa farsamo dadka xoolo dhaqatadii ay dadka kala dheer yihiin Badri Koosar Maxamuud telefishinka Sahan degmada War-Idaad